wax yaroo ilaahay kala soocay mooyaane isku siba loola hadlaya. bini aadamkana adawaadkiisa isbedelay, bini aadamnimadiisu inta badan isma bedesho. gabadha muslimadda ah maxaa laga rabaa? maxayse qaban kartaa? duruufta nololada cusub hadda joogtaa maxay u saamaxaysaa amase maxay u ogoshahay? ugu horeyn, qof kastoo muslima wadiifatuhu luula ama shaqadiisa koowaad waa rabbigii inuu caabudo subxaanahu wa tacaala xaqa cibaadatihi. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa soo raacay Mucaad ibnu Jabal oo dameer uu nabigu fuushanaa la soo fuulay, isagoo nebi maxameda oo rasuulkiiya oo ummadda madaxdeediiya. tawaaduciisa dameer buu iska fuushanaa. dameerkana weliba kelima fuulaynine qof labaad baa la fuulayay. dameer laba qof wada saaran tahay. Mucaad ibnu Jabal wuxuu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam, Mucaad u yeedhay. yaa Mucaad buu ku yidhi, war Mucaadow. Mucaad wuu u jawaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo labayka leh. nabigu wuu ka aamusay, haddana waxba kuma odhanin. cabaar markii la socdaybu haddana mar kale u yeedhay, Mucaadow. waa u jawaabay, waxba nebigu uguma sheegin calayhi salaatu wasalaam. cabaar ba haddana la socday. cabaar markii la socdo mar saddexaad nebigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam. yaa Mucaad uu ku yidhi, yaa Mucaad ibnu Jabal. labayka buu yidhi, wastacdayka yaa rasuul allah. su-aalahan waxaynu odhan karnaa waxaa laga faa'iidaya ku celcelintu nebigu ku celceliyay Mucaad inuu si fiican u dhegaysto, inaanu warka nebigu dhaafin isagoo mashquulsan ama wax kale ka fakeraya, isagoo wada dhega ah oo isla talow nebigu muxuu kuu sheegayaa in warka kan loo sheego. wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, Mucaadow, xaqa ilaahay addoomihiisa ku leeya ma taqaanaa? ilaahay xuquuqdiisa waa addoomaha ku leeya ma taqaanaa? allah wa rasuuluhu aclam buu jawaabay. alliya rasuul baa garan. dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, waa inay rabbi keligii caabudaan oo aanay cidna ugu shariik yeelin. qaacidadaasi waa qaacida caama, waa xaqu llahi cala alcibaad. waa rabbi subxaanahu wa tacaala addoomaha xaqa uu ku leeyahay. ilaaha ku nooleeyey ee ku arsaaqay ee ku abuuray ee ku caafimaadiyey ee ku wanaajiyey wuxuu xaq u leeyahy inaad ku tidhaahda rabba waad mahadsantay. mahadintiisuna waa inaanad wixii uu nimco ku siiyey isagaad ku caabuddo, inaad isaga kaga hor imanin wixii uu ku siiyey. waa shay ay wadaagaan rag iyo dumarba qof kastoo muslimi. marka alwaajib alawal gabadha muslimadda a saaran, ee ninka muslimka a saaran, ee ilmaha yara muslimka a saaran, ee qofka weyne gaboobay muslimka a saaran waa maxay? waa inuu rabbigii caabudo, cibaadadu xaq u leeyahay.